wasiirkii hore ee warfaafinta dawladda ku meel gaadhka Soomaaliya Cabdikariin Xasan Jaamac oo xalay soo gaadhay magaalada Buuhoole ee xarunta gobolka Cayn kana soo kicitimay magaalada Taleex oo ka socda shirweynaha Khaatumato ayaa wuxuu maanta kormeeray qaybo ka mid ah magaalada Buuhoole sidoo kale barqanimadii maanta ayaa waxa uu booqday jiida hore oo ay ku sugan yihiin ciidamada deegaanka Buuhoole halkaasi oo shir jaraa'id kadib ku qabtay balliga Shangalle wuxuuna ka hadlay arrimo dhowr isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri waxaan rabaa inaan halkan kaga hadlo arrimihii shalayto ka dhacay gardarro loogu soo weeraray deegaanka Buuhoole iyo tuulooyin ku dhow ay soo galeen ciidamo ka tirsan maamul goboleedka Soomaaliland kuwaas oo si xaq darro ah dhibaato iyo dhaawac ugu geystay dad aan waxba ka mudan kadibna laga saaray deegaankii iyagoo dhibaato badani ay gaadhay waxaan ugu baaqaynaa dadka maamulka ka taliya ciddii joogta ee caqli leh in dhibaatadaas laga joogo dagaal cidna uma fiicna dagaalka dhibaato ayuu u keenaa dagaal wiil kuma dhasho ee wiil baa ku dhinta haddii dagaalka la deyn waayo dadku wuu isdifaacayaa dhibaatana way ka soo gaadhaysaa dadka dagaalkan urinaya waxaan ugu baaqaynaa maamul goboleedkan Somaliland in uu ka waantoobo inuu isku dayo in dad deegaankooda iyagu ku tashaday sidii ay u maamulan lahaayeen inuu xoog ku muqooniyo wax dhici kara ma aha mana dhici doonto dadka culumaa diinka ah iyo dadka waxgaradka ah inay caruurtooda badbaadiyaan inay dulmiga laga joogo dadkooda ku yiraahaan ku dhiiradaan ilaahay ma taageero dulmi ilaahay qofka la dulmiyay wuu taageeraa dulmina ma guuleysta marka culumada aamusan ee diinta garanaya qofku hadduu u dagaalamo naftiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa inuu ahlu janno yahay qof limka ahina inuu meel daran ku dambaynayo war la hadla tolkiin oo waaniya oo ka jooga waxaan dhaha siyaasiyiinta hawshan wada deegaankan dadku wuxuu degan yahay 100 kilomitir oo uu isdhex degan yahay oo uu yaani xidid iyo wax walba isu yahay dabha ka shidina aan joogsan doonin muddo badan waa laga yaabaa in maalin tuulo la qabsado laakiin dadku wuu iska celinayaa wax wayna ka go'an tahay in maamulkaas hadda la dhisay ee loo bixiyay Khaatumo State of Somalia oo ka tirsan dawladda federaalka in uu xuduudiisa hubiyo marka dadku kala guuri maayo daris baa leeyahay wax badan baa dadka ka dhaxeeyay meeshan aan taaganahay oo balliga ah waxa jooga xoolo ay leeyihiin dadkan aan dariska nahay hadda dagaalka soo qaadaya marka waxaan idinka waaynaynaa war dadka dhibaato aydan hadhowta ka xalinayna ha u keenina oo deegaanka dhibaato hadhow aydan ka saari karin ha u keenina ee ka waantooba waxaan ku soo gabagabeynayaa dawladda federaalka madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo xildhibaano waajibka saaran oo aan leeyahay way ku gaabiyeen wuxuu yahay inay ka hadlaan dhibaatada arrinkan halkan ka dhacday iyo gardarrada qaawan ee lagu soo qaaday deegaankan ka tirsan dawladda Soomaaliya international community-ga beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa inay la hadlaan dadkan dagaal oogayaasha ah oo ay ka dalbadaan inay joojiyaan dhibaatadan deegaanku taa uma fadhiyo doono oo dawlad federaal iyo mid international community midna ka sugi maayo inuu isdifaacaya laakiin qolyaha waxa laga doonayaa inay waajibkooda ka soo baxaan guul ayaan u rajaynaynaa xaqa dadkan ay isku difaacayaan waana rajaynaynaa dadka dhibaatada soo qaaday shalay ee casharka la mariyay inay ka waantoobaan haddii kaleeto intaa iyo inka badan baa sugaysa yaa ku soo dhawaadaan wassalaamu calaykum dhanka kale waxaa socdaalkan ku waaliyay qaar ka mid ah waxgaradka iyo waliba qurba joogta kuwaasi oo dhankooda uga digay waxgaradka iyo waliba waalidiinta maamulka Somaliland inay caruurtooda ka ceshadaan deegaano aysan lahayn haddii kale wixii ku dhaca ay iyagu dusha u ridan doonaan taas tusaale waxa uu ah duulaanka xaqdarrada ahaa ee shacabka aan hubaysnayn ee nabadda u fadhiyay aan cidna daandaansan ee reer Buuhoole shalay lagu soo qaaday markii laga fidiyay ahaa waa la haystaa deegaankoodii inuu been yahay intaa dheer maatada waa la qaxiyey waa la barakiciyey waa la dilay waa la dhaawacay hay'adaha caalamka waxaanu ka codsanaynaa in dadka la barakiciyey ee IDPs-ka la yiraahdo loo soo gudbiyo waxaan ugu
ugu dhawaaqanaa shacabka iyo deegaanada aanu jaarka nahay nabad iyo iskaashi. waxaanu soo jeedinaynaa dadka walaalahaya ah inaad is-ilaalisaan, nabadda xajisaan, difaaca adkaysaan, dhulkiinnana aydaan oggolaan cid aydaan raalli ka ahayn inay idinku xukunto. aad baan u salaamayaa intay dhegaysanaysa iyo intay daawanaysoba. asalaamu calaykum waraxmatullahi. si anugu waxaan ka hadlayaa oo aannu u sheegaynaa nimanka isku sheegaya waqooyi galbeed baannu madax ka nahay inaanayda qabsan karayn taa ka dhulbahanta leeyahay oonu u diyaarnahay dalkayaga iyo dadkayaga baynu daafacno. shalayna wixii la sheegayay iska ahayd waxaan jirin. magaalada way soo booqdeen, laakiin waxaannu kaga saarnay ragannimo iyo xoog, barya kagamaannaa saarin. maantana waxaannu u diyaarnahay inaannu xooggayaga xaniiyahayaga dul dhigno. waxaannu u sheegaynaa dadweynaha ku nool burca iyo hargaysa iyo boorame ninka idiin madaxweyney inuu jecel yahay inuu cidhib tiro dhallinyarada oo uu ku cidhib tiro intuu annaka noo soo diro, annakuna aannu duhur cad galoolka ku wadhno dhiiggooga. waxaannu idiin sheegaynaayo kale carruurtiinna inaad ka ilaashatiin ood kala baxdeen ciidamada. ma jeclin wiil soomaaliya oo calanka soomaaliyeed daafici doona oo u diyaara inaannu haddaannu nahay deegaankani inaannu ku dilno dhulkayaga. waa naga ceeb reerisi si haddaannu nahay. waxaannu u diyaarnahay inaannu soo dhowaynno. waxaannu idinku ballanqaadaynaa haddii aad ku dadaashin carruurtiinna inaad ilaashatiin inaannu carruurtiinna kaannu qabannaba aannu ilaalinno. waa haddii aad qaadan weydiin digniin iyo tabaabulsho ninka meesha haystaa. waxaannu malaynayaa inay maaragtay inuu si kale isugu fikiraayo. waxaannu idinkula talinaynaa annagu waxaanu nahay reerka leh deegaanada sool iyo sanaag iyo cayn. ma jeclin dadkan wada dhalannay eenu imaabtiga nahay, eenu abtiyaasha isku nahay, eenu ehelka nahay inaannu wax gardarra'a ku samayno midna ma jeclin. laakiin haddana idinku dib ugu noqdo oo dee dib isku xisaabiya. annagu xaq baanu leenahay inaannu maamul samaysanno. waananu samaysannay, waananu ku dhawaaqnay. dibna uguma noqonayno labada maamul ee garabkayaga ah, midna dib uguma noqonayno. waananu saxeexnay. ninbaa wuxuu ku gebiyey cirkow soo dun camuudday dhaqaaq cadha allay kaalay waxba dhowran maynay raboo dhagaxya soo daadi. hadday dhagaxya soo daadanayaan dib ugama jeesayno annaku masiirkayaga. saaka ayay ahayd markii magaalada taleex lagaga dhawaaqay maamul cusub oo yeeshaan deegaanada sool sanaag iyo cayn, kaasi oo lagu magacaabay khaatuma state of soomaaliya. isku soo wada duba waxaa deggan maanta xaaladda magaalada buuhoodle, halkaasi oo ay shalay ka dhaceen dagaallo xooggan iyadoo laga yaabo in mar kale ay halkaasi dagaallo ka qarxaan maadaama ay ciidamadii is hor fadhiyaan. axmed cabdiqaadir jabaan, darwiish TV, buuhoodle.